sideetameydii anagoo yar waxaan u imaan jirnay tafsiir meesha laga akhrinay waxaan ka akhrinay wadaad awowgeyga ah. At the heart of Mogadishu's oldest city stands Arba' Rukn, one of the most historic mosques in Somalia. It has lived through centuries of prayer and decades of conflict. Arba' Rukn was first built in the 13th century. Back then, Mogadishu was a thriving trade hub connecting to Arabia, Asia, and the East Africa coast. This mosque became one of the spiritual anchors of the city and a meeting place for scholars, traders, and families. For centuries, people prayed here, they memorized Quran here, they opened their hearts here, and even as Mogadishu changed, this mosque remained a symbol of knowledge and unity. Marka masjidkan hadda Arba' Rukn la yiraahdo sideetameydii anagoo yar waxaan u imaan jirnay tafsiir meesha laga akhrinay waxaan ka akhrinay wadaad awowgeyga ah la yiraahdo Shariif Abubakar Shariif Ciidruus oo laakiin ku magac dheeraa Shariif Sharafow. marka tafsiirka masjidka intii la buuxiyo ilaa barxadan dhan banaanka ilaa ilaamiyada dadka baabuurtooda intay ku yimaadaan masjidka waa buuxaayeen waxay ku dhageysanayaan ayagoo baabuurkooda saaran barxadan dhan ayaa la buuxin jiray. marka masjidka wuxuu ahaa masjid camiran meel istaraatiiji fiican ku yaala gudaha iyo banaanka aad baa loo buuxin jiray. marka masjidkan wuxuu ka mid yahay masaajidada aasaarta qadiimiga leh. When the civil war erupted in the 1990s, many buildings in Mogadishu fell, but Arba' Rukn somehow survived. Its walls took bullets. It is courtyard so fair, but it never collapsed. waa wax aad u wanaagsan maaragtay in la ilaaliyo goobaha qadiimka mid kale Soomaalida ma og ilaalinta goobaha qadiimka waa arin diiniya ma garatay in la keedsado masaajidda qadiimiga asalka in la keedsado goobaha sida kale ama masaajid ama guryahaasna qadiimka xarumaha dawladda ee qadiimka waa wax aad u wanaagsan. Soomaalida waxa jeclaala inay ku baraarugaan anu waxaan kamid ahay bahda TikTok ku soo bandhiga goobaha qadiimka oo mar walba qeylada ay dhamaatay bulshada u dhahay in maarkano la ilaashado goobaha qadiimka. The mosque became more than a place of worship. It became a reminder that something, faith, heritage, identity, can't be destroyed. anagu waan soo dhaweynaynaa in masaajidda aasaarta qadiimka in la ilaaliyo waan soo dhaweynaynaa howlaha aan qabanayna ba kamid tahaba marka insha Allah taala diyaarna waxaan u nahay inaan ka qayb qaadano. Today, despite the city's fast growth, Arba' Rukn is still a magnet for students, elders, travelers, and families. It represents something rare, a space untouched by modern noise. For many, praying here is a way of connecting with ancestors and grounding themselves in a city that never sleeps. Mogadishu is a city of contrast. Modern towers rise above ancient alleyways. New businesses stand beside ruins, but Arba' Rukn brings these eras together. Thank you. My name is Abdul Wahab Ahmed, founding director of Hayyan Heritage, a Somali-based, Mogadishu-based heritage, cultural heritage organization. Today we have concluded one of the most interesting activities that Hayyan organized recently. It was first a public forum for preserving Somalia's historic mosques. As you know, Somalia have been overcoming from total state collapse. So cultural heritage and heritage in general is not something priority and something on the table. So Hayyan is dedicated to revive this kind of activities by bringing together the expertise, bringing together the stakeholders. Today we had a wonderful activity bringing together the Ministry of Endowment and Islamic Affairs, the managers, especially those who manage the mosques, and the researchers who interest the field. It was something we started today, but it will be a journey in the future. In a world where cultural sites are disappearing, Arba' Rukn remains a rare survivor, a bridge between Somali's past
and its future, but each comes with challenges. Parts of the mosque needs restoration. Historians fear that without careful preservation, the structure could weaken. آثار قديم إنه وها runtii yaan la baabi'inin markaan dhehayno waxaan ugu dan leeyahay dadka xadaarada leh ama ilbaxyaasha ah aahaartoodii ma baabi'iyaan hadda caalamka markaad wareegaysid waxaad arkaysaa meelo badan aahaar booqashaa loo tagaa soo ma ahan booqashaa loo tagaa maxaa loo booqanaa aahaartii hore inay soo arkaanay rabaan dadka marka hadda aahaartii hore caradaa la soo qaaday kan hadda misaal jaamac shigaani waa caradiyaa la baaray waxaa la ogaaday 1,000 sano inuu dhisnaaba masjidka la yaab ma lahan waayo islaamka Soomaaliya wuxuu soo gaaray qabla an yasila al-islaamu ila al-madiinati al-munawwara magaalada Madiina intuusan gaarin ayaa islaamka Soomaaliya uu soo gaaray waayo nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu asxaabta diraayay xabasha aada uu dhahay Itoobiya xabasha doomane ku safreen waxaan ognahay Itoobiya bad ma lahan doomagsay u safrayeen badda Soomaaliya ay ku degeen dhinacan Zaylac meelahaas ay ka sii galeen xataa Zaylac waxaa ka dhaxdisan ilaa ay hadda laga helayaa masjid la yiraahdo qiblatayn labada qiblo maxaa laga wadaa islaamka awalkiisa asxaabtu waxay u dukanayeen dhinaca Baytul Maqdis kadib waa la yir Kacbada u jeesta marka labadii qiblo mar ayadoo Baytul Maqdis u dukanayaan waa ka muuqataa mar ayadoo Kacbada u dukanayaan way ka muuqataa marka waxaad dareemi kartaa aahaarta mar walba in la ilaaliyo muhiim inay tahay si xataa dadka ajaanibta dibadda noogu imaanaya muslimiinta ah aahaartaan oo kale inaan tusno waxay noo tahay faan